Dinosaurtu waa koox xamaarata oo ku noolaa dunida 245 milyan oo sano ka hor. Sanadkii 1842, khabiirka caanka ah ee Sir Richard Owen waxa uu curiyay magaca Dinosauria oo ka soo jeeda laba kelmadood oo Greek ah, kuwaasoo kala ah Dinios oo macnaheedu yahay cabsi weyn iyo Sauros oo macnaheedu yahay qorraxda. Hadhaaga raadadkii dinosaurta ayaa laga helay dhammaan 7 qaaradood. Dhammaan dinosauryadii aan ahayn Aafyaanka ayaa dabar go'ay qiyaastii 66 milyan oo sano ka hor. Waxaa jira aragtiyo dhowr ah oo ku saabsan waxa laga yaabo inay gacan ka geysteen dabargoynta ballaaran ee dinosauriska aan Aafyaanka ahayn. Waxaa hubaal ah in asteroidska waa dhagaxa ama comet shihaab weyn uu ku dhacay dhulka, taasoo keentay isbeddel weyn oo ku yimid cimilada dhulka. Saynisyahanada qaar ayaa qiyaasaya in sababtani ay cawaaqib xumo xun ku yeelatay nolosha dunida, laakiin arrimo kale oo ay ku jiraan isbeddelka heerarka badda iyo dhaqdhaqaaqa ballaaran ee volkaanaha ayaa sidoo kale laga yaabaa inay door weyn ka ciyaareen dabargoyntan ballaaran. Nooca dinosaurtu u eg tahay ama sida ay u dhaqmi jirtay waxaa laga helaa fossiliska oo loo yaqaano hadhaaga raadadka xayawaanadii hore ay ka tageen, sida ilkaha, lafaha iyo qolofta ama caddaynta dhaqdhaqaaqa xayawaanka, kuwaas oo laga soo dheehdo ama laga soo saaro qaabka ay u noolaayeen ama u ekaayeenba. Wax kasta oo aanu ka naqaano dinosaurtu waxay ku salaysan yihiin ama laga helayba fossilis, kuwaas oo ay ku jiraan lafaha, ilkaha iyo raadadka. Marka la isbarbar dhigo madaxyada Protoceratops-ka ee dahaan kala duwan sida sawirkan kore ka muuqda, cilmi-baarayaasha paleontologists-ku waxay soo saari karaan gunaanad ku saabsan sida dinosauriska qaarkood u koraan. Dinosauryadii ugu horreeyay ee adduunka lagu arkay ayaa soo muuqday xilligii Triassic, qiyaastii 250 milyan oo sano ka hor. Dinosaurku waxay u xoog-siibteen kooxo aad u kala duwan oo xayawaanno ah, oo ay ku jiraan shimbiraha casriga ah. Si ka duwan sida ay dad badani u malaynayaan, dhammaan dinosauryadu may wada noolayn xilli isku mid ah. Juqraafiga Stachyrus, tusaale ahaan, wuxuu noolaa xilligii Jurassic ee dambe, qiyaastii 150 milyan oo sano ka hor. Tyrannosaurus wuxuu noolaa intii lagu jiray muddadii Cretaceous ee dambe, qiyaastii 72 milyan oo sano ka hor. Stachyrus ayaa dabar go'ay 66 milyan oo sano ka hor inta uusan Tyrannosaurus ku socon dhulka. Xawaaraha ugu sarreeya ee dinosaurtu sari kartaa saacadiiba waa 50 ilaa 40 kiiloomitir. Waa socodka ugu dheereeya ee qof bini'aadani socon karo. Alamosaurus, oo ah nooca ugu weyn ee la diiwaangeliyay dinosaur, ayaa cabirkeeda lagu sheegaa 29 mitir, culayskeedana 38, halka dibkeeda oo keliya lagu sheegay 12 mitir.